cabdimaalig muuse coldoon ayaa maanta la hor keenay maxkamadda magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Coldoon oo maanta kitaabka alle ku xujiyay garsooraha maxkamadda isagoo kitaabka kor u qaadaya ayaa waxa uu yiri erayo ka oohiyay guud ahaanba garsoorayaashii ka soo qayb galay maxkamadaasi. haddaba waxaan idhaynaa erayadii uu halkaasi ka yiri cabdimaalig muuse coldoon. hayeeshee daawada intayna barnaamijka u guda gelin hadda channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadan la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka. waxaa maxkamadda magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland saakaysoo ka tiinadaysan oo shabak ku jira la hor keenay maxkamadda. coldoon oo maanta kitaabka alle ku xujiyay garsoorihii maxkamadaasi waxa uu yiri markii la gabagabeeyay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah cabdimaalig muuse coldoon ayaa garsooraha coldoon waxa uu siiyay ereygii ugu dambeeyay waxaana uu ku yiri maxaad codsanaysaa oo aad ka codsanaysaa maxkamadda sharafta leh ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. cabdimaalig muuse coldoon oo fursadaasi helay oo ka jawaabaya su'aashaasi ayaa waxa uu yiri inta uu kitaabka quraanka kor u qaaday waa kitaabka Ilaahay ee waxa aan doonayaa in aad kitaabka Ilaahay ii eegto oo waxa iiga soo baxa aad igu xukunto oo aanad igu xukumin wax ka sokeeya xukunka kitaabka Alle subxaanahu wa ta'ala. sidoo kale cabdimaalig muuse coldoon ayaa garsooraha ku yiri haddii aad i dulmido oo aad xukunka cadaalad darro ah dusha iga saarto Ilaahay waxa aan kaaga baryayaa subxaanahu wa ta'ala inuu Alle kugu sallidin axad kale oo iga dambeeya aniga adiga iyo cid kasto arrinkayga ku lug leh. cabdimaalig muuse coldoon ayaa intaasi raaciyay garsoore waxa aan u xidhanahay buu yiri laba qolo oo isbahaystay oo kala kuwa diinta islaamka duulaan ku ah iyo kuwa awoodii dowladnimada adeegsanaya oo ah kuwa saaka aniga oo ka tiinadaysan igu ka keenay shabagan birta ah ee aan ku jiro hadda ee ha ii raacin kuwa kan. cabdimaalig muuse coldoon hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri rag isku hayba ayaa xadhigayga ka hadlay oo ku baaqay oo qaarkood ku baaqay in la idilo waxaa ka mid ah raggaasi cabdiraxmaan cadami maxamed cabdi daawud maxamed maxamuud xiiley aadan siiro walaalkii iyo axmed cadare. haddii ay cadaalad jirto garsoore kuwa in la ii maxkamadeeyo ayay ahayd taasina ma dhicin. waxaa dheer buu yiri cabdimaalig muuse coldoon adiguna garsoore lahayd baa tahay iyaga oo maba ay ahayd in kiiskayga lagu dhiibo madaxweynihii soo xidhayna waa idin lahayd sidaa daraaddeed waxa aan kaa rabaa cadaalad inaad halkan iigu samayso oo aad kitaabka Ilaahay aad igu xukunto. cabdimaalig oo kor u qaadaya kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. cabdimaalig muuse coldoon ayaa wuxuu yiri maanta waa if berrina waa aakhiro isagoo kitaabka kor u haya adduunkan waa laga tegayaa ee Ilaahay raali geli oo cadaalad samee. haddii aad Ilaahay raali gelisid maxaa lagu yeeli karaa oo ugu weyn oo aan ahayn in shaqada uun laga joojiyo. garsoore xasan mataan axmed maxamed oo ah garsooraha ka garnaqaya dacwadda cabdimaalig sheekh muuse coldoon ayaa la sugayaa maalmaha dhow ee soo socda in go'aan ka soo saaro dacwadda. cabdimaalig sheekh muuse coldoon ayaa la xidhay bishii 19 sanadii la soo dhaafay kadib markii uu ka hadlay shabakadda abaarso iyo baadariyada gudoomiye ka ah jaamacadda barwaaqo. cabdimaalig muuse coldoon maanta waxa uu baahan yahay duco alle xorriyadiisa u soo celiyo. samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa guud ahaanba ku oohiyay dadkii halkaasi ka soo qayb galay ee goobjooga ka ahaa maxkamadda magaalada Hargeysa. 3 jeer oo hore ayaa maxkamadda la keenay oo dib loo dhigay dacwadiisa isagoo markasta kitaabka alle gacanta ku haya ayuu garsoorayaasha xujinayay. kadibna kiiska ayaa dib loo dhigayay maalinba maalin ka dambaysa. waxa uu xidhan yahay ilaa iyo bishii 8 ilaa iyo hadda waa muddo dhowr bilooda ku dhow 6 bilood waa sanad barkii
oo aan intaasi wax sharci iyo cadaaladna aan helin xukun rasmi ah oo maxkamadda ku xukuntayna aan haysan ayaa ku xidhan xabsigeeda magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. maalinba xabsi ayaa loo gudbiyaa, habeenba xabsi ayuu ku hoydaa. kadib markuu ka hadlay Cabdimaalig Muuse Coldoon shabakada Abaarso ee dhinaca waxbarashada ayaa waxa uu yiri waxaaba laygu hanjabay hadalkaasi kadib in aniga dil laygu hanjabo oo la idilo. waxaana igu hanjabay rag isku hayba ayaa xarigayga ka hadlay buu yiri oo ku baaqaya qaarkood in la idilo oo noloshaba la idhaafiyo. Cabdimaalig Muuse Coldoon oo samafale saxafi ka howlgala guud ahaan bagayga Soomaalida una badan guud ahaan bagayga Somaliland ayaa waxa uu yiri soo kitaabkiisa kor u qaadaya oo dadka aad ugu oohiyay markii maxkamadda garsooruhu weydiiyay oo uu yiri maxaad ka codsanaysaa dabayaaqadii ama gabagabadii maxkamadda. inta uu kitaabkiisa quraanka kor u qaaday waxa aan doonayaa buu yiri inaad kitaabka Ilaahay eegto oo waxa iiga soo baxa aad igu xukunto aanad igu xukumin wax ka sokeeya kitaabka Alle. sidoo kale Coldoon ayaa garsooraha ku yiri haddii aad i dulmido aad xukun cadaalad darro dusha iga saarto Ilaahay waxa aan ka baryayaa in aanu Alle kugu sallidin axad kale ama qof kale oo iga dambeeya aniga adiga iyo cid kasto arrinkayga ku lugta lehba. Coldoon ayaa intaa raaciyay garsoore waxaan xidhanahay laba qolo oo isbahaystay buu yiri kuwa diinta islaamku duulaanku ah iyo kuwa awoodii dowladnimada adeegsanaya oo ah kuwa saaka aniga oo ka teenadaysan igu ka keenay shabagan birta ah ee aan ku jiro hadda ee hay raacin kuwan. Coldoon ayaa xitaa ka teenadaysnaa markuu maxkamadda horteeda joogay. waxa uu afka ku dhuftay oo uu yiri rag isku hayba ayaa xarigayga ka hadlay oo ku baaqay oo qaarkood ku baaqay in la idilo. raggaasi ayuu taxay waxaana ka mid ahaa buu yiri ragga Cabdiraxmaan Cadami, Maxamed Cabdi Daawud, Maxamed Maxamuud Xiirey oo ah aadan siiro walaalkii iyo Axmed Cadare. haddii ay cadaalad jirto kuwa in la ii maxkamadeeyo ayay ahayd taasi balse ma aysan dhicin nasiib darro. Cabdimaalig Muuse Coldoon oo u dhexraaciyay fariina u diray ayaa waxa uu yiri waxa dheer buu yiri intaasi oo dhan oo isku haybtaa adiguna garsoore la hayba baa tahay oo la qabiila oo maba ay ahayd in kiiskayga lagu dhiibo madaxweynihii soo xidhayna waa idin la hayb. sidaa daraadeed waxaan ka rabaa cadaalad inaad ugu xukunto iyo kitaabka Ilaahay oo aanad ii eegin kuwan. maanta waa aakhiro berrina waa aakhiro adduunkan waa laga tegayaa Ilaahay raali geli oo cadaalad samee. haddii aad Ilaahay raali gelisid maxaa lagu yeeli karaa oo ugu weyn oo ahayn in shaqada laga joojiyo ayuu yiri su'aashaas ugu dhiibay garsooraha maxkamadda magaalada Hargeysa Cabdimaalig Muuse Coldoon. garsoore Xasan Mataan oo ah garsooraha maxkamadda ugu sareeya Somaliland ee maanta xukuntay maanta kiiskiisa dib u dhigtay oo ah garsoore ka qarinaqaya dacwadda Cabdimaalig ayaa la sugayaa maalmaha dhow ee soo socda in kiiskiisa go'aan laga soo saaro. Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa xidhan ilaa iyo bartamihii bishii 8 sanadkii hore waxaana lagu xidhay kadib markuu ka hadlay shabakada Abaarso iyo baadariyad gudoomiye ka ah jaamacadda Barwaaqo Pastor Joy Iza. haddaba daawad u ducee alla xorriyadiisa uu soo celiyo samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon. fadlan commentiga ugu ducee muuqaalkana like saar si uu faafo.